Ladies and gentlemen, the winner of Mrs. Sri Lanka World 2020 goes to none other than contestant number 20. haweeneyda ku guuleysatay abaalmarinta ugu weyn dhinaca quruxda ee dalka Sri Lanka ayaa dhaawac madaxa ka soo gaaray kadib markii la isku dagaalay masraxa dushiisa. boqoradda quruxda oo lagu magacaabo Bushika De Silva ayaa ku guuleysatay tartanka Mrs Sri Lanka markii munaasabad telefishinkaas lagu daawanayay oo xilkaas lagu tartamayay ay dhacday Axadii. wax yar kadib haweeneydii abaalmarinta ku guuleysatay 2019 ayaa taajka ka qaaday Mrs De Silva iyadoo sheegtay in aysan u qalmin xilkaasi maadaama ay tahay haweeney la soo furay. abaalmarintan ayaa hadda dib loogu celiyay Mrs De Silva kadib markii qabanqaabayaasha munaasabadda ay soo xaqiijiyeen in aan la furin. garsoorayaal maxkamadeed ayaa habeenkii Axad Mrs De Silva u magacaabay boqoradda quruxda ee 2021 xilligaas oo uu finaalka tartanka ka dhacay magaalada Colombo. hase yeeshee Carolyn Jolie ayaa tartanka ku guuleysatay 2019 ayaa mar qura Mrs De Silva ka xayuubisay taajkeedii iyadoo sheegtay in xeerka u yaala tartanka uu yahay in abaalmarinta la guddoonsiiyo haweeney xaas ah oo aan garoob ahayn. waxaa jira sharci taajka ka hor istaagaya dumarka hore loo guursaday oo la furay, sidaas darteed waxaan qaadayaa tallaabo taajkan lagu siinayo qofka galay kaalinta labaad, ayay Mrs Jolie ku tidhi ka qaybgalayaasha xafladda. isla markii waxay taajka madaxa u saartay gabadhii laga guuleystay, arrintaas oo sababtay in Mrs De Silva oo ooneys ay ka cararto maslaxa sida uu muujinayo muuqaal dhacdadaas laga soo duubay. qabanqaabayaasha tartanka ayaa ka raaligeliyay Mrs De Silva arrinta dhacday maadaama ay sheegtay in iyadu iyo ninkeeda ay kala tageen oo keliya balse aan isfurin. qoraal ay soo dhigtay Facebook-geeda ayay ku sheegtay in ay isbitaal aaday si loogu daaweeyo dhaawac madaxa ka soo gaaray intii taajka laga bixinayay. Mrs De Silva ayaa sheegtay in ay sharciga la tiigsan doonto aflagaadada loo geystay iyo sida loola dhaqmay. waxaa jira hooyooyin iskaabul ah oo sideeda oo kale maanta oo u dhibaataysan dalka Sri Lanka gudihiisa, ayay tidhi Mrs De Silva oo qabatay shir jaraa'id. taajkan waxaa loogu talagalay dumarkaas hooyooyinkaas iskaabulada ah ee caqabadaha la kulmaya korinta ilmahooda iyagoo keligooda ah. agaasimaha tartanka Mrs Sri Lanka Chandimal ayaa sheegay in taajka Mrs De Silva dib loogu celin doono. booliska ayaa dhacdadaasi su'aalo ka weydiiyay Mrs Jolie oo hadda ah qofka xilka boqoradda quruxda haya iyo sidoo kale agaasimaha Chandimal. tartanka ayaa ka mid ah kuwa ugu waaweyn dalkaasi. xaaska ra'iisul wasaaraha ayaa ka mid ah marti sharaftii ka qayb gashay xafladda caleemasaarka boqoradda quruxda ee Mrs Sri Lanka. haddii aad nala soo gaartay barnaamijka dhammaadkiisa, ha ilaawan channelka inaad subscribe saarto, like na saar muuqaalkan, wixii fikrad iyo ra'ayna qaybta commentiga noogu reeb.